السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، kulankeena allah inaga aqbalo, dembigeenana allah ha dhaaf. dad badanoo walaalaheenoo xanuunsan baa jira, iyakana caafimaad sariica allah ha siiyo. sabadana roob khayr badan allah inooga keeno. runtii walaalayaal, waa laynala hadlay, inkastoo zamankan uu hadalku iska batay. waa farqiga inoo dhexeeya innaka iyo asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam wa radia allahu canhum ajmaciin. zamankeennan hadalka iska badan, laakiin waxaa inagu yaraaday camalfalkii diinta. halka zamankii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin ka hadalka diintu waa uu koobnaa, laakiin ku dhaqanka diinta ayaa fara badnaa. cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu waxaa laga sheegay inuu yidhi 10 aayadood oo qur-aanka ilaahay ku taalla markii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ay dushiisa ku soo degto kamaanu gudbi jirin ilaa 10kaa aan baranno oo waxay wanaag ayna farayaanna aan la imanno, waxay munkar iyo xumaan ay naga reebayaanna aan ka reebtoonaanno, kadib baan inta kale u gudbi jirna bay yidhahdeen asxaabtu. haddana hadal in diin laynagala hadlo waa iskaga baahannahay kulligeen. keenna diinta yaqaanee diinta aqoonteeda loo nisbaynayana inuu diinta maqlo waa u baahan yahay. ka taalibaalcilmiga in lala hadlana waa u baahan yahay. nebigeenu calayhi salaatu wasalaam ibnu mascuud radia allahu canhu ayuu nebigu ku yidhi: iqra' calaya alqur'aan, dushayda qur-aanka ku akhri. markaasaan ku idhi: aqra'u calayka wacalayka unzil yaa rasuula allah, qur-aankan dushaadu ku soo degee ma dushaadan anigu ku akhrin karaa? waxa uu nebigu ugu jawaabay: innii uxibu an asmacahu min hayrii, waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystaan jecelahe, dushayda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. lianna qur-aanku waa wacdigii ilaahay, qur-aanku waa bayaankii ilaahay uu khalqigiisa u jeediyey. haddaad adigu doonto ilaahay inaad la munaajooto ood ilaahay aada la hadasho, salaada tuko, leanna qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonayaa. haddaad laakiin adigoo aad damacdo ilaahay inuu kula hadlo, hadalkiisa aad dhegaysatid oo wacdigiisa aad dhegaysatid, haddaad doonto kitaabka ilaahay kala fur, leanna qur-aanku waa bayaankii ilaahay khalqigiisa u jeediyey weeyaan. hada bayaanun linnaas, hada balaagun linnaas, ilahay baa qur-aanka ku sheegay. saxaabigaasi wuxuu yidhi: nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa ayaan ku akhriyay suuraddaas, suuratu nnisaa, ilaa laga gaadha aayaddaas: fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida. aayaddaa markaan gaadhay ayuu nebigu yihi: xasbuka al'aan, ha kugu fillaatay intaasi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. saxaabigii wuxuu yidhi: nebiga wejigiisa ayaan fiiriyey, labadiisa indhood nebiga ilinta ayaa ku qumaysay. waa dhowr taqriiban 40 aayadood oo suuratu nisaa awaa'ilkeega ayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu akhriyey. aayaddan uu nebigu yidhi ha kugu fillaatay halkaa ku joojina, macnaheegu waxa weeyaan xaalku siduu ahaani doonaa maalinka qiyaamaha markaan ku keenno, adoo ku markhaati furi doona ummaddaadii inaad risaaladda aad gaadhsiisay, dadkoo dhanna maaragtaanay ummad walba aan soo joojinnana iyadii nebigeygii oo ku marag furaya inuu risaaladda uu nebi walba ummaddiisa u gaadhsiiyey. nebi kasta qiyaamaha banka qiyaama waa la keeni,
wuxuu marag furi doonaa ummaddiisa risaaladii loogu dhiibay inuu gaadhsiiyey halka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaamna banka qiyaamo loo joojin doono isagana inuu ummaddiisa ku marag furo inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey nebi nuux calayhi salaam baa banka qiyaamo la keeni iyo qoomkiisii markaasaa ilaahay ku odhan doonaa qowma nuux rasuul munaynii iman risaaladayni soo gaadhsiiyey markaasay idhahdeen maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir cid khayrka noo bishaaraysa oo naarta nooga digta annaka nooma iman markaasaa ilaahay nebi nuux odhan doonaa aw risaaladaan ku dhiibay ummaddaada miyaanad gaadhsiin markaasuu leeyahay yaa rabbi risaaladii aniga aad ii dhiibtay ummaddayda waan gaadhsiiyey oo inaad ummaddaada risaaladda aad gaadhsiisay marag ma u haysataa markhaati haa markhaati waan haystaa waxaa maragii aniga inaan ummadda risaaladda aan gaadhsiiyey ummatu muxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ummaddiisaa markhaati ii ah ummaddii nebi maxamed baa la soo joojin banka qiyaame xagga abuurka markay noqotona ummadda nebi nuux waa ummad nebi rasuul loo soo diro ummaddii ugu horraysay innaka marka layna eegana waxaan nahay ummaddii ummadaha ugu dambaysay sidee markaa ummaddani ummaddii ummadaha ugu horraysay ay maragga ugu buuxini doontaa oo ugu markhaati furi doontaa in risaalad la gaadhsiiyey waa la weydiinoo la odhan doonaa seed maragga u buuxinaysaan iyakuna waa ummaddii ummadaha ugu horraysay nebi nuuxna nebigii nebiyada ugu horreeyey rasuulkii ugu horreeyey risaalad loo dhiibo ininkuna ininka ummadaha ugu dambeeye ummaddana waxay odhan doontaa nebigii moxamed calayhi salaatu wasalaam aad noo soo dirtay iyo risaaladaad u soo dhiibtay qur-aankii kariimka ahaa ayaa noogu caddaysay inuu nebi nuux ummaddiisa uu risaaladda uu gaadhsiiyey walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa 50 caama faakhadahum adduufaanu wahum daalimuun waa ka ilaahay qur-aankiisa noogu sheegay 950 sano ummaddiisa dhex nagaaduu dadka xagga ilaahay ugu yeedhayay marka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagana waxaa la soo joojin doonaa banka aan u noolin sida nafsadiisu ay doonayso kaafirka maxaa lagu yaqaanaa kaafirku waa qofka shahawaadkiisa raaca weeyaan waa qofka ilaahay aanan garan kii abuurayna ma yaqaano ujeeddadii loo abuurtayna ma yaqaano hadafkii laga lahaa ma yaqaano meeshuu u socdana ma yaqaano bal adduunyadanba wuxuu arkaa inay tahay daartii xorriyadda dad badanna maanta waxaa laga dhaadhiciyey adduunkan xor baa tahay waxaad doonta samee laakiin shareecadda islaamku waxay ku leedahay xor ma tihid waxaad tahay addoon ilaahay ilaahayna waad u baahan tahay kama maarmi karayside ilaahay mar walba xasuusno oo ilaahay ha iloobin oo qalbigaaga ilaahay ku hay oo caafimaadka ilaaha ku siiye kugu deeqay ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu mahadi ku salliya rasuulka dhagaysta dee hadalkan ka hadlaya iyo waxaa dhacay may kale ma hadalkana qiimo leh mise waxaa dhacay baa qiimo leh dhagaysta dee haddaba ku salliya rasuulkeenna sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasallam marka diinta islaamka waxay ku leedahay sidaa waxaad u noolaataa uu rabbiga uu rabee sida adigoo aad doonto marna ha u noolaan ilaahayna innaka u baahan oo dadkao dhan hadday ilaahay caabudaan waxba ilaahay uma kordhinayaan hadday wada caasiyaanna ilaahay caza wajalla waxba kama dhimayaan waa hani isagaa ilaahay isku filan hadday cibaado noqotona malaa'ig waxa uu leeyahay leylan wa nahaaran ilaahay cibaadadiisa aan ka daalaynin oo shahawaadka innaka nagu abuuran iyo ka aan lagu abuuran oo tasbiixiya ilaahay taacaddiisa heegan u ah ayaa ilaahay leeyahay adiga iyo aniga oo bani aadamow shahawaadkeennu badan yahay oo weliba shaydaan inagu lifaaqan yahay ayaa haddana layna leeyahay ha raacina shayddaanka iyo shahawaadkiisa ha raacine amarka ilaahay raaca oo maaragtane shareecadda raaca baa lagu leeyahay oo addoon ilaahay noqo addoon macnaheedu waxa weeyaan waa qofka siduu isagu rabo aanan u dhaqmine sida ilaahay uu ka rabo u dhaqmo berigii addoommaha la iibsan jiray ee la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa markaa wuxuu tegay meelihii dadka lagu iibinaya addoommaha addoon buu markaa soo gatay markuu meheradiisii uu la yimiday ayuu magaciisii weydiiyey wuxuu yidhi magacaa baa lagu yidhaah wuxuu yidhi magacaad adigu ii bixisaa magacii noqonaya buu ku yidhi markaa buu ku yidhi dhar maxaa jeceshood xidhataa ii sheeg markaasuu yidhi dharkaad adigu ii xidho unbaa dharii noqonaya maanta laga bilaabaa markaasuu yidhi dharkeed jeceshood xidhataa raashinkeed jeceshood cuntaa ii sheeg
wuxuu ma anta laga bilaabo raashinka adigu aad isiiso ba raashin ii noqonaya marka ninkii maalqabeenkii hantiilihii wuxuu yidhi war bal ninka fiiriya buu yidhi wixii anigu aan su'aal isaga weydiiyaba isaguna anigu maaragtaan su'aasha jawaabteeda igu soo celinayaa markaasuu ku yidhi war dhagayso adigu ikhtiyaar miyaanad lahayn buu ka yidhi ikhtiyaar miyaanad lahayn markaasuu yidhi addoon baan ahee addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu ka yidhi addoon macnaheegu waa sidaa addoon ikhtiyaar ma leh addoonka khiyaarka wuxuu ku socdaa sayidkiisa innaku ma dad waxaan nahay ilaahay addoomihiisiiya mise dad axraar oo xor baa tihiin la yidhi baan nahay dad waxaan nahay la yidhi addoommo ilaahay baa tihiin addoon markaa macnaheegu waxay ka dhigan tahay sida rabbigii uu jecel yahay buu mar walba u socdaa ilaahay markaa muxuu inaga rabaa ilaahay waxuu inaga rabaa haween iyo ragba wuxuu inaga rabaa meel kasta oo aan joogno inaan ilaahay kaga cabsoonno waa inay wanaagga ka shaqeeyaan waa inay ummadda wanaagga faraan waa inay xumaha ummadda ka zuuliyaan waa inay salaada oogaan waa inay zakadana la yimaadaan waa in ilaahay rasuulkiisa adeecaan maqaasid alxayaat weeyaan waxa qur-aanku ka warramayo hadday diintu inoo hagaagto nolosheennu way inoo hagaagi hadday diintu nolosheenna ku duusan tahayna waxaad ogaataa nolosheennu way duusan tahay ogaada soomaalida waxay tidhaahdaa waxa umusha udanaba ilmahana udana onaga marka islaantu ay u umusho ilmaha maaragtaane cunto u soo gadi maayo aqalka raashinna u soo dhigi maayo laakiin islaanta ayuu maaragtaane nafaqada u soo diyaarinaya muqmad buu u keenayaa malab buu u keenayaa timir buu u keenayaa masaariftii buu u kordhinayaa waxa uu leeyahay nafaqada ilmuhu hooyuu ka helayaa waa meesha soomaalidu ay leedahay waxa umusha udana ayaa ilmahana udana waxa diinta udana ayaa innakana inoo dana marka diinta dadaalkeenna ma culummada keliyaan ku daynaa mise haween iyo ragba diinta dadaalkeega waa u guntanaa insha allah dhahada dadaalka diintu wax adag maaha kulankaasi waa dadaal diineed baaqa aad soo ajiibtay waa dadaal diineed hadalka culummadu ay leedahay ood qoyskaaga iyo reerkaaga iyo saaxiibadaada aad u sheegtaa waa dadaal diineed